abbaaro tobankii subaxnimo ee saaka ayaa waxaa magaalada arabsiya ka dhacay shil naxdin badan oo ay ku dhinteen hal qof oo ka mid ah ardayda wax ka barata degmada arabsiyo iyo 3 kale oo arday oo dhaawac halisa oo la soo gaarsiiyay isbitaalada caasimadda Hargeysa. wafdi ballaaran oo waxbarashada Jamhuuriyadda Somaliland oo warkacay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada, gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Professor Daawud Axmed Faarax iyo sidoo kale la taliyaha wasiirka wasaaradda waxbarashada, mas'uuliyiinta Gabiley oo warkacay xogayaha fulinta dowladda hoose degmadaasi Gabiley Cabdiraxmaan Nuur Abokor ayaa ka qayb galay aaskaasi loo sameeyay ardaydaasi shilka gaari ku geeriyooday. gaarigaas oo ah nooca booyada loo yaqaano. aaskaasi loo sameeyay ayaa halkaasi waxaa ka hadlay bahda wasaaradda waxbarashada oo isku duuban oo warkacay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Professor Daawud Axmed Faarax oo halkaasi tacsi iyo tiiraayo uga diray qoyskii ardaygaasi geeriyooday, kuwa kalena Ilaahay uga baryay inuu caafimaad sareecana siiyo. aaskan ayaa ku soo beegmaya xilli ay dhacdadii noqotay dhacdo naxdin leh oo dadweynaha reer Arabsiyaad aad uga murugoodaan. waxa kale oo aan ka tacsiyeynaa bahweynta waxbarashada ee heer gobol iyo heer qaraba. waxa kale oo tacsiyo direynaa qoyskii uu ka geeriyooday ayaan leenahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo. dhamaanteena inteena kale joogtana samir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. والسلام على أشرف المرسلين. إنا لله وإنا إليه راجعون. sidoo wasiir ku-xigeen kuba sheegay aniga tug kale oo gaaro saayida waxa la sheegay ardaygu inuu ahaa ardaydii sanadkan u diyaar garoobaysay form 4ka. ilaahay waxaan uga baryayaa inuu kuwa ku nasba qabriga ilaahay u nuuro oo darajadii form 4ka uu keelaato ka qiimo badan oo raxmadda ilaahay inuu ilaahay qabriga ku siiyaan ilaahay uga rajaynayaa oo gaara ardaygaasi waa shahiid. وانا فرنتي شلكي وقفل حماية نصامرة كدر سلها زايد نها نقطة جزء تعسير الشوق دول أولي إلهي نقول عجونها دانس كل عجونة نبكي يقولي ما لحظة قبلك يا قرنك يا دقمة أبوه حكبر أروتشلها أرضه هاي سمعها مرتو بل أرضه مالها مرتو لا بدا كوي عطو هاي شو وار إلهي برزق بحية هدي بيرتها هي هدي بيتها بقى waddo ardaydu martaa waxba ina yeeli maaye maayirkii abtiga hay ka soo dhinacayga joogo hadana waxaan rabnaaba in sagoon maayir iyo amar iyo awood laga dhigay gudoomiyaha waxbarashadu waa kan iyadoo dacwad iyo waxba toona laga dhigay waxaan shacabka reer Arabsiyo iyo meel kastaba dalka tan dhacday way dhici kartaa bariya saadaba meel kale ka dhici kartaa taxadir haynu sameeyno geeri cidana ma baajin karto. xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Gabiley Cabdiraxmaan Nuur Abokor oo halkaasi aad la kooban isna ka jeediyay iyo maamulka degmada Arabsiyo ayaa tacsi iyo tiiraayo u diray ardaygaasi maanta ku geeriyooday shilkaasi gaari ay gaarigaasi booyadu sababtay. ilaahi wa inna ilaahi raaji'uun. kullu nafsi daaqatul maut. maanta waxa dhintay laba arday saaka u soo kalahay inuu waxbarasho u tago iskuulkii iyo laba arday 3 arday oo dhaawac waxaan leenahay ilaahay horta samir iyo iimaan dhamaanteen naga siiyo. waxaan ka taxseenaynaa waalidkii dhalay wadkaas bahda waxbarashada iyo dhamaan ehelkooda waxaan leenahay samir iyo iimaan naga siiyo. waa ehlu janno jannadii iska tagay maanta wakaas mootul qafluhu helay gaarigaas uu jeeday waxaan leenahay ilaahay uu naxariisto dhamaanteen samir iyo iimaan naga siiyo. maanta waxa tabaya ardaydii u fasalka la fadhiisanayay ee rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. geeridu waa xaq cid walbana way dhadhamin nin walbana sidii Allah ugu tala galay ayay ku helaysaa ku gaari jira iyo ku badila godooto iyo maxaa ku ilaa ku bactaac ku dhaco iyo ku bahalcuna iyo ku furaashkiisa ku go'aba nin walba sidii Ilaahay u qadaray ayay ku helaysaa. ilaahay naxariis Allah ka waraabiyaan leenahay inanka lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. kullu nafsin daa'iqatul maut. geeri baynu taaganahay walaalkeen baynu taaganahay maxamuud sheekh maxamed cabdi jaamac oo ahaa arday dugsiga sare ee xasiyo inis dhigta ee Arabsiyo oo sanadka ka baxayay dhammaan bahda waxbarashada wasiir dawlihii oo dhala taagan wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada la taliyihii wasiirka waxbarashada gudoomiyihii imtixaanaadka qaranka abtigay Daawud dhammaan iyo bahda waxbarashada dhamaanta Arabsiyood gobolka iyo ta qarankaba iyo gaar ahaan dugsiga sare ee Arabsiyood
وقت عسيدين يقيسكي يقرابدي يبهوين ترى الربسيات وكبح المرحوم كاسي اسكول عربسية سكندري سكول markaan yar usii jirno ayaan laamiga ka dhaadhacnay kabacdi markaa booyadan wuxuu ku soo socotay markii dambana gaadhibaha haadkayga ku hakaday iyadoo xoog soo socotay xaggayga isoo leexis markaa anigiyo inagan iminka dhaawaca ugu horeeyay ka dhintay ka dhaawacina weliga kaas intaas u martay markaa imka adu maxaad qabtaa labada dhinac ka dhaawaca waa Nimcaan Deeg Ibraahin iyo Ayaala Xaaji telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Gabiile.